madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa dhagax dhigay xarumo dowladda Puntland ay ku yeelanayso magaalada Gaalkacyo sida madaxtooyada gobolka Mudug, wasaaradda hawlaha guud, wasaaradda beeraha, wasaaradda ganacsiga, xarunta bangiga iyo saldhigga ciidanka ilaalada canshuuraha. waxaana xarun walba furaheeda gacanta loo gashay xarumaha la dhagax dhigay. xarumahan uu dhagax dhigay maanta madaxweynaha dowladda Puntland ayaa ah kuwii dowladda Puntland dhawaan ay kala wareegtay shacabkii hore gacanta ugu hayay. duqa degmada Gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugaal ayaa ka hadlay dhagax dhigga iyo inta xarumood ay ka kooban yihiin dhagax dhigani. madaxweyne aad iyo aad bay sharaf ugu tahay maanta inaad soo dhagax dhigtid madaxtooyadii magaalada Gaalkacyo, wasaaradda hawlaha guud, wasaaradda beeraha iyo wasaaradda ganacsiga iyo bangiga dhexe Puntland gobolka Mudug iyo stationka ama saldhigga booliiska bangiga ku yaala. aad iyo aad baan maartay arrintaas waxay tahay arrin maartay wax qabad weyn ah. aad baan maartay ugu faraxsanahay arrintaas inay maanta magaalada Gaalkacyo ka dhacdo. siiba waxa weeyaan madaxtooyada halkaas oo ahayd meeshii intii Gaalkacyo aasaasantay waqtigii gumaysaha iyo waqtiyadii ka dambeeyayba muddo 100 sano ka badan halkaas oo laga xukumayay gobolka Mudug. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad dhagax dhigtid. wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ah gudoomiyaha horumarinta iyo qaabaynta magaalada ayaa isna halkaasi ka hadlay. mudana madaxweyne dhammaan wasaaradaha maanta furayaashooda la wareejiyay sida wasaaradda hawlaha guud, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda beeraha ayaxi iyo madaxtooyadii dhammaan waxaan jecel lahay sida ugu dhaqsaha badan in hay'ad walba iyo wasaarad walba ay uga hawl gasho meesha shacabkii uu ku wareejiyay oo baneeyo dowladda lagu soo wareejiyay bilicdii iyo karaamadii iyo shaqadii ummadda u hayn jirtay mid waliba sida ugu dhaqsaha badan inuu bilaabo. aad iyo aad baan mudana madaxweyne ugu faraxsanahay. madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay dhagax dhigga ayaa amar ku bixiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso xarumaha maanta uu dhagax dhigay. aad bay sharaf weyn ugu tahay inaan dhagax dhigno dhowr kameerood oo ay taabteen maayarka iyo wasiirku. guddiguna aad ugu mahadsan yihiin shaqada runtii wanaagsan oo ay qabteen ilaa waqtiga aan nimid bannaynta guryaha dowladda, naqshadaynta magaalada iyo jidadka magaalada oo meel fiican runtii maraya. aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii sida wanaagsan wadaniyadda ku jirto u dhiibay uga baxay guryihii dowladda intii ogolaatay in magaalada si nabadgelyo oo wanaagsan loo naqshadeeyo jidadna looga bixiyo. dadku aan ku arnay Gaalkacyo dad muwaadiniin runtii wanaagsan weeye una hoggaansan awaamirta dowladda. intii wanaagga wax ku gudbisay oo ku dhiibtay waan u mahadnaqaynaa. waana wax taariikhdu ay ka markici doonto. intii jiriyeysa oo dib la timaadana gacan bir ayaanu soo qabanaynaa. runtu taa weeye. waxaan rajaynayaa in wasaaradaha lagu wareejiyey guryahoodii iyo hay-adihii ama bangiga ha noqoto ama booliiska ha noqotee in wixii lagu hayay wax ka fiican ay ku qabtaan ayaan dadka warkicidnay maahe in meeshu iska bannaanaato oo bahalagalan iska noqoto macnaheedu maaha. waxaan rabnaa marka si degdeg ah inay uga howlgalaan u dhistaan hay-adahoodii wax wanaagsan oo qurux badanna oo dadka reer Gaalkacyo ay ku farxaanna ay ka soo saaran ayaan ilaahay yiraahdo. waxaan rajaynaynaa marka inta noo hartayna inaan dhagax dhigno wasaaradihii intii hartay. wasaarada waxaa jira aan guryaba ku lahayn, deegaanna aan ku lahayn Gaalkacyo. iyana waxaan rajaynaynaa in guryaha dowladda oo la baneynayo qaybtooda ay helaan ku wareejino loo dhagax dhigo iyana ay dhistaan ayaan rajaynaynaa. waxaana marka dowladdu Mudug iyo Gaalkacyaba si mug leh dowladda dhexe inay u timaado ugana shaqayso ayaan rajaynaynaa. aad iyo aad badan mahadsantihiin. Cabdinaasir Maxamed Cali, Somali Channel, Gaalkacyo.